baydhabo dagaal culus ayaa ka dhacay waxay u muuqataa in ciidamadii mucaaradka ay xilligan sii xoogeysanayaan xaafado badan oo magaalada ka mid ahna gudaha ayaa loo galay meelo muhiim ah ayaa ciidamada koonfur galbeed la warinaya in laga soo saaray sidoo kale laba beelood oo walaalo ah oo wada dega isla gudaha baydhabo ayaa maanta isdagaalay xaaladii ugu dambeysay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyo koonfur galbeed oo xilligan xaaladeedu dagaal lugaha la sii galaysa weerarkan dhacay qasaraha rasmiga ah ee dhashay wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal haddii ay tahay markaa kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto sidoo kalena qaybta hoose ee faalada aragtidina nagula wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba ah xarunta kumeel gaarka ah ee maamulkaas ayaa la soo warinayaa in siyaabooyin kala duwan ay dagaallo uga dhaceen saraakiil rag ah ayaa ku geeriyooday sidoo kale waxaa la weriyey in xiisad caawa ay ka taagan tahay hub uruursi ayaa socda lafta gareena waxa uu amar ku bixiyey in guud ahaanba lasoo afjaro beelaha gudaha magaalada isku haya iyo ciidamo la sheegay inay yihiin kuwa mucaaradka taageersan inay guud ahaanba soo afjaraan ciidamada kala duwan ee koonfur galbeed ee ku sugan gudaha magaalada baydhabo ee dowlad goboleedkaasi aynu ku hormarno subaxnimadii hore ee saaka dagaal qaraar ayaa dhacay kaas oo ay wararku sheegayaan in ay ku geeriyoodeen rag saraakiil ah waxaa la weriyey in dadka geeriyooday ay ku jiraan rag taliyayaal ah oo la tilmaamay inay halkaasi magac ku lahaayeen iyo maamuus waxaana dadka geeriyooday ka mid ah labadan askari ee lagu kala magacaabo ee allaha u kala naxariistee waa abaagey iyo sidoo kale nuur cali ganey oo ah labada shakhsi ee sawiradooda halkan idinkaga muuqda weerarka waxa uu si gaar ah uga dhacay halka la yidhaahdo suuqa xoolaha oo ka mid ah gudaha xaafadda amaba gudaha magaaladaasi baydhabo ee dowlad goboleedkaasi waa laba beelood dagaalkii hore markaasi dhexmaray dhinacyadan kuwaas oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac laba dhinac oo la tilmaamay in beelahaas ay ka soo kala jeedaan oo booliis iyo military isugu jira ayaa la tilmaamay inay dagaalka qayb ka ahaayeen oo weliba taagtaag gudaha suuqa ka dhacay kadib ugu dambeyn ay keentay israsaaseen ay ku geeriyoodeen labadaasi askari ee lagu kala magacaabo abagey iyo sidoo kale cabdi nuur oo ka mid ah ee dadka saraakiisha ah ee halkaasi ku sugnaa waxaa sidoo kale la weriyey in dagaalka la kala dhexgalay ciidamadii koonfur galbeed gaar ahaanna kuwii daraawiishta ay gudaha markaasi galeen ee suuqa kadibna ay ka kala qaadeen dhinacyada halkaasi isku risaasiyey laakiin haddu warar kala duwan ayaa soo baxaya ciidamadii mucaaradka qayb ka mid ah oo weliba ku xooganaa gudaha xaafad lagu magacaabo onkod ayaa la weriyey inay gudaha u galeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamadan waxaa la tilmaamay in xaafadaha qaar ee magaalada ay ku sugnaayeen sidoo kalena uu hogaaminayey amaba ay ka amar qaataan wasiirka xanaanada xoolaha sidoo kalena ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xasan eelay waxaa wararku ay sheegayaan in xiisad culus ay soo kala dhexgashay madaxweyne lafta gareen iyo sidoo kale wasiir eelay nin magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan nishow oo ka mid ah saraakiisha ku sugan gudaha magaalada baydhabo sidoo kalena la tilmaamay in uu hogaaminayo ciidamadaas ayaa la sheegay in gurigiisa lagu weeraray taas oo keentay in dagaal qaraar uu halkaasi ka qarxo oo u dhexeeya ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka amar qaata madaxweyne lafta gareen iyo sidoo kale ciidamadan sidoo kalena ka amar qaata wasiirka xanaanada xoolaha waa xasan eelay oo ka mid ah saraakiisha amaaniraade wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya dagaal qaraar oo aan waxba laysku reeban ayaa halkaasi ka dhacay marba marka kasii dambaysana rasaas goosgoos ah ayaa la maqlayey oo dhinacyadan ay adeegsanayeen waxaa wararku ay sheegayaan nishow ninka lagu magacaabo in gurigiisa ay ku weerareen ciidamadan oo ka amar qaata kan degmada baydhabo iyo guud ahaanba maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya taas oo keentay in dagaal qaraar uu dhaco wararka qaar oo soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamadu ay la wareegeen saldhiggii xaafadaasi onkod lagu magacaabo taas oo ugu dambeyn la tilmaamay inay sababtay ciidamadii dhinaca madaxweyne lafta garan ka socday ee ka amar qaadanayay ay gadaal u soo baxaan oo xeelad dib u soo gorasho ay sameeyaan walow markii dambe haddana la sheegay inay dagaalka kusii laabteen waxaa halkaasi ka socda abaabul ciidan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan ciidamada mucaaradka gaar ahaanna la sheegay ciidamo isbedeldoon ah inay yihiin sida aynu wararka ku helayno weerarka ilaa iyo hadda inkastoo wax khasaare ah uusan geysan haddana waxaa muuqata saansaan colaadeed oo isku dhacii markaasi sababay beelihii halkaasi ku wada dagaalamay ugu dambeyn ay isu bedeshay in weerar lagu qaado ciidamo fadhigoodu uu ahaa guriga wasiir
xukuumadda federaalk Soomaaliya ka tirsan oo magaalada Muqdisho ku sugan Xasan Eelayna lagu magacaabo waxaa la tilmaamay ciidamada taliyahan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Nishow guud ahaanba inay xirteen jidka Sodonka ee magaalada Baydhabo taasi oo keentay xasilooni darro weyn oo bulshada si weyn u saameysay ugu dambeynna ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ka amar qaatay madaxweyne lafta gareen ay ka war heleen arrintaas weer ayaana lagu qaaday waxaa sidoo kale la tilmaamay in ciidamadan taabacsan Nishow in difaacyo adag ay ka qoteen sidoo kalena ay si weyn u taageersan yihiin garabka isbedeldoonka ee dhinaca mucaaradka taasi oo ay wararku sheegayaan in ay sababtay in dagaal halkaas uu ka dhaco oo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu geysto xaaladda guud ee xaafadaha kala duwan ee dagaaladu ay ka dhaceen si gaar ah xaafadan lagu magacaabo Onkod oo kamid ah gudaha magaalada Baydhabo ayaa la tilmaamay in ay markaasi deganeen oo la maqlayo rasaas goosgoos ah oo dhinacyadana isku ridayaan marba marka ka sii dambaysa xaaladda ayaa si adkaanaysa taliyaha gurigiisa la weerarayna waxaa la tilmaamay in ciidamadii ugu badnaa ay markaasi u tageen sidoo kalena difaacyo adag ee ay ka xirteen meelo badan oo kamid ah isla gudaha xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo sidoo kale waxaa la warinayaa in nin magaciisa lagu sheegay Meeday iyo sidoo kale ciidankiisa guud ahaan doodba ay badqabaan halka ciidamadii madaxtooyada ee koonfur galbeedna la tilmaamay in iyagana ay badqabaan laakiin marka laga soo tago rasaastii dhacday ay dadku si weyn markaas u dareemayaan khalqal amni oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya welina ah caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi waxaa wararka ay sheegeen in markii ay ciidamadan lagu magacaabo ciidamada xaquudirarka oo ay gudaha xaafadaasi weerarkan ku soo qaadeen ay la wareegeen sida aan warbixinteenaba hordhaceeda kugu sheegnay saldhigii xaafadda onodka lagu magacaabo ama loo yaqaano xaafadaha gudaha magaalada Baydhabo taas oo keentay in markii dambe weerar xoogan oo ay qaadeen ciidamadan koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa daraawiishta ee madaxtooyadu gaar ahaan ciidamada sida gaarka madaxtooyada u qaabilsan inay dib ula wareegaan xaafadaasi ciidamo ugu badan saraakiishii markaasi ugu badneed oo iyagana ciidamadan hogaaminaya ayaa lagu arkay qayb ka mid isla xaafadaha Baydhabo xaaladda ayaana hadda u muuqata mid ka sii dareysa guud ahaanba howlgalka waxaa la sheegay in ay si toos ah hadda gacanta ugu hayaan xaafadihii lagu dagaalamay ciidamada ammaanka ee degmada Baydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya haddaba hub urursi iyo sidoo kale isqabqabsi siyaasadeed ayaa ka dhex bilowday gudaha magaalada Baydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya lafta gareen hadda waxa uu wajahaya cadaadiska ugu xooganaa oo kaga imaanaya wasiir Xasan Eelay iyo xubno kale oo mucaaradka ah kuwaas oo qaarkood uu si keli ah uu kala baxay garabka mucaaradka saacadihii la soo dhaafayna la tilmaamay in kulamo arintaas looga arinsanaya ka socdeen magaalooyin dhowr ah oo ay kamid tahay Baydhabo iyo Muqdisho sidoo kale welwel ayaa xilligan soo food saaray muxaafadka koonfur galbeed Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweyne lafta gareen oo isagu ah madaxweynaha dowlad goboleedkaasi oo sanado badan halkaasi markaasi fadhiya sidoo kalena madaxweyne ka hadda waxay u muuqataa in xaaladdu ay ka sii dirayso xaaladda siyaasadeed ee koonfur galbeedna ay mar kale dib u soo laba kaclaysay imaanshihiisii koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen dhiig badan ayaa ku daatay ilaa heer la dilo lana soo xiro rag madax ah oo uu ka mid yahay wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalk Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur oo hadda ah wasiir ka tirsan xukuumadda sidoo kale rag kale ayaa jiray oo qaarkood iyagana la tilmaamay in loo xiray arrintaas sidoo kalena dad shacab ah ayaa ku geeriyooday weerar halkaasi ka dhacay oo ay fuliyeen ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo xilligaas oo si toos ah loogu doortay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal xaaladda Baydhabo oo aad u kacsan sidoo kale cabsi dagaal oo mar kale ka taagan xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo wararkii ugu dambeeyay barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya xogahaasi hela haddii aad ila dhamaad kale la soo gaarto waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan sidoo kale meel dheer la gaarsiisaan